sida dhaqso loogu noqdo nooca ragga ay dumarku ka helaan. Waxaan hubaa inaad ugu yaraan mar aragtay wiil gabar aad ugu fiicnaa, dib u diidi jiray, koolkoolin jiray, waxay ka dalbatana u yeeli jiray, oo haddana gabadhii uu saa u ahaa cidla kaga dhaqaaqday, kana doorbiday mid ayna waxaas oo kalgacayl ah ka helay. Maxaa sababay in wiilka kalgacaylka iyo xubbiga miiran ahaa uu u guuldaraysto, kan aan waxba danaynna u guulaysto? Sababtu waxay tahay dumarku ayaa u samaysan inay jeclaadaan ninka baahida yar, dareen ahaanna u xoogan, aadkana iskuga kalsoon. Warka fiican ee aan ku hayaa wuxuu yahay inay jiraan waxyaabo aad si dhaqso ah u samayn karto si aad u noqoto ninka ay dumarku aadka uga helaan. 7 tallaabo oo aad si dhaqso ah ugu noqon karto nooca ragga ah oo ay dumarku ka daba dhacaan. 1. Ha dhoola cadayn, madaxana ha ruuxin markaad dhagaysanayso. Wiilasha qaar ayaa waxay wejigooda ka muujiyaan dhoola cadayn markay gabadh dhagaysanayaan. Wiilasha noocan ahna gabdhuhu kama helaan. Cilmi baaris ayaa caddaysay in ragga badanaa dhoola cadeeya ay u muuqdaan qaar soo jiidashadooda hooseyso marka la barbar dhigo kuwa aan dhoola cadayn. Sababtuna waxay tahay nin in yar dhoola cadeeya wuxuu u muuqanayaa nin taf ah oo adag. 2. Wax yar hadal. Ragga ay dumarku ka helaan wax badani ma hadlaan. Waxay yaqaanaan sida loo isticmaalo ereyada ugu kooban oo ay naftooda ku sharaxi karaan. Markaad wax yar hadasho, waxaad noqonaysaa qof uu qofku ku wareero dareenadiisa, oo ay madaxnimadu ku yar tahay. Waxaana intaaba ka sii muhiimsan, waxaad u muuqanaysaa mid baahi yar. 3. Isku kalsoonow. Ka takhallus khajalaada badan, ka takhallus warwarka, oo noqo nin isku kalsoon. U hadal si kalsooni leh oo u soco si kalsooni leh. Ficil kastood qaadana ha ka turjumo kalsoonidaada. Kalsoonida naftu waxay ninka ka dhigtaa mid ay dumarku ka daba dhacaan. 4. Aad ha u farxin. Ma garanaysaa dareenka farxadeed ee ay caruurta dareemaan marka loo soo iibiyo boombalada ama caruusada ay ku ciyaaraan? Dareenka farxadeed ee ay tahay in aad ka waa ka marka aad soo bandhigto dareen aad u yar, waxaad noqonaysaa qof wax badan u qarsoon yihiin. taana waxay gabadha u diraysaa fariin ah inaanad ahayn nin si fudud lagu heli karo, oo aad ugu qiimo badan tahay ragga kale. 5. Nin adag noqo. Inaad nin adag noqotaa waa mid ka mid ah waxyaabaha daruuriga ah oo aad ku noqonayso ninka ay dumarku ka helaan. Inaad nin adag noqotaa macnaheedu ma aha in aad murqo waaweyn yeelato, balse waa inaad noqotaa mid muuqaal ahaan iyo dareen ahaanba adag. Markasta ha ka caban noloshaada. Ha iska dhigin qof daciif ah, hana iska dhigin mid u muuqda inay nolosha ku adag tahay. 6. Wax muhiimad ah ha siin fikradda dadka kale. Tan macnaheedu ma ahan in aad xumayso ama aad ku xadgudubto dadka kale xuquuqdooda, balse macnaheedu waa in aad samayso wax kasta oo aad rabto adigoon ka baqanayn cambaaraynta dadka kale. 7. Maya dheh. Ha ku raacin gabadha wax kasta khilaaf marka aad aaminsan tahay inaad saxsan tahay. Maya dheh adigoon wax sharaxaad ah bixinayn. Markaad jeclaysan inaad samayso, u istaag waxaad xaq u leedahay. Warkaaguna ha caddaado markaad wax weydiinayso. Digniin. Waqtiga ay tahay inaad isticmaasho farsamooyinkan si laga yaabo inaad horeyba ka qiyaastay in aad qof kasto sida ula dhaqanta waxay ka dhigi kartaa mid asxaabtiisu aad u yar tahay. sidaa daraaddeed waxa ugu fiican ee aad samayn kartaa waa in aad barataa waqtiga ugu habboon ee ay tahay inaad isticmaasho farsamooyinkan.